gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen wadada isku xirta xeragaadiid ilaa iyo isgooska Mariinada. dhagax dhigan ayaa gudoomiyaha gobolka waxa ku heliyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir mudane Ibraahim Dheere. shacabka ku dhaqan degmada Cabdicasiis ayaa waxa ay baahi badan u qabeen dhisida wadadan isku xirta xeragaadiid ilaa iyo isgooska Mariinada. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Cabdicasiis ee maamulka gobolka Banaadir mudane Mahdi Faarax Cabdulle ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay dhismaha wadadan iyo muhiimadda ay u leedahay degmada Cabdicasiis. isaga iyo dhammaan madaxda kale ee la socota warbaahinta shacabka reer Muqdisho gaar ahaan shacab weynaha reer Cabdicasiis waxaan leenahay guushi waa noo bilaabatay insha Allah taala gudoomiyuhu koona maaha labana maahan jidadka uu noo dhex dhigi doono insha Rahmaan haddana asaga rabaa inaan ku wareejiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in wadadan ay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka maamulka dawladda hoose ee Xamarna ay muhiimad gaar ah siin doonto dhismaha wadooyinka burbursan. alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. madaxda maamulka gobolka Banaadir madaxda degmada Cabdicasiis mas'uuliyiinta kala gedisan bahda meediyaha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan reer Cabdicasiis waxaa sharaf weyn u ah maamulka gobolka Banaadir sharaf weyn u ah dalka Soomaaliya sharaf weyn u ah maantay inaan dhagax dhigno wadada degmada Cabdicasiis dhacda ee ka bilaabata gaadiidka booliska ilaa isgoyska wadada Mariina. wadadan aan maanta dhagax dhigayno waxay ka mid tahay wadooyinka ku burburay muddadii burburka kuwooda ugu daran ayay ka mid tahay. waxaan u xulnay marka maadaama goobo muhiim ah oo istiraatiiji ay ku yaalaan oo ay ka mid tahay gaadiidka booliska استاديامka isbitaalka Fawlanini iyo goobo kale muhiim ah maadaama ay intaas ay hormarto ayaan mudnaan u siinay. degmada Cabdicasiis ayaa nasiib u yeelatay waxaa ka horeeyay wadooyin kale oo ay ka mid tahay wadada warshadaha iyo Cali Kamin wadada baar ayaan ilaa laga soo gaarayo isgoyska Siinay wadada hadda gabagabada ah oo ka baxda wakaalada muuska madbacada qaranka ilaa laga gaarayo dekada ayaa hadda gabagaba ah. midaanina waa mid kale oo aan rajeynayno inay waqti dhow noo dhammaystiranto maantana aan taagana dhagax dhigeedii. Cabdirashiid Sandheere raadiyaha iyo telefishinka SBC Muqdisho.